أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back again to Ashraf Academic Online. Kusudu markale Ashraf Academic Online. Allah ya mahadis kale oo idinku caafimaad qabteen iyo aniga caafimaad qaban iska kulmiyay markale waxay noo soo daacadadeeni taxana ahay waa sidii noogu barateen casharada aad ku xiiso badan. Okay, maanta waxayna qaadan doonaa topic about healthy, mawduuc ku saabsan caafimaadka oo ardayda ku xiran bahda Ashraf Academic Online arday kamid ah oo soo codsaday ayaana codsigiisa u tixgelinay. maanta waxayna qaadan doonaa topic about healthy, topic ku saabsan mawduuc ku saabsan caafimaadka. Okay, haddii aan guda galno wuxuu leeyahay good afternoon, galab wanaagsan. Good afternoon, galab wanaagsan my precious teachers, macallimiintayda qaaliga ah. My precious teachers, macallimiintayda qaaliga ah, and my dear friends iyo asxaabtayda qaaliga ah, and my dear friends iyo asxaabtayda qaaliga ah. Good afternoon, galab wanaagsan my precious teachers, macallimiintayda qaaliga ah, and my dear friends iyo asxaabtayda qaaliga ah. Today maxaa waaye maanta waxaan rabaa to talk inaan ka hadlo topic mawduuc about ku saabsan healthy caafimaadka. Today maanta waxaan rabaa to talk inaan ka hadlo topic mawduuc about ku saabsan healthy caafimaadka. Okay, the healthy maxaa waaye caafimaadka is the most important thing, waa shayga ugu muhiimsan in the world ee adduunka. The healthy caafimaadka is the most important thing, waa shayga ugu muhiimsan in the world ee adduunka. The healthy caafimaadka is the most important thing, waa shayga ugu muhiimsan in the world ee adduunka. And gift waa hadiyad that hadiyadaasoo Allah gave us oo Allah na siiyay. And a gift waa hadiyad that hadiyadaasoo Allah gave us oo Allah na siiyay ayuu dhahay. The healthy is the most important thing in the world and gift that Allah gave us. For example, okay, hadiyadaasoo Allah na siiyay. For example, tusaale, my life noloshayda is my health, waa caafimaadkeeda. My life is my health, noloshayda waa caafimaadkeyga ayuu dhahay. My life noloshayda is my health, waa caafimaadkeyga. My life maxaa waaye noloshayda is my health, waa caafimaadkeyga. Because maxaa yeelay it is said waxay leedahay that health caafimaadkaasi is a wealthy, waa hanti ayuu leeyahay. Okay, it is said waxay leedahay that health caafimaadkaas is a wealthy, waa hanti. That health caafimaadkaasi is a wealthy, waa hanti. Okay, for example, tusaale, my life noloshayda is my health, waa caafimaadkeyga. Because maxaa yeelay it is said waxay leedahay that health caafimaadkaasi is a wealthy, waa hanti. We have seen waxaan aragnay in the society, bulshada dhexdeeda. We have seen in the society waxaan bulshada dhexdeeda ku aragnay that many people dad badan are having ay haystaan a lot of wealthy, hanti badan ayuu leeyahay. We have seen in the society waxaan bulshada dhexdeeda ku aragnay that many people dad badan are having ay haysto a lot of wealthy, hanti badan ay haystaan. But laakiin unfortunately nasiib daro they don't have ma haystaan prepared healthy caafimaad. They don't have ma haystaan maxaa waaye prepared healthy macnaha caafimaad diyaarsan. They don't unfortunately nasiib daro they don't have ma haystaan prepared healthy caafimaad diyaarsan to enjoy si ay ugu raaxaystaan that wealthy hantidaasi. If our health hadduu caafimaadkeena is a good oo wanaagsan yahay, we can enjoy waan ku raaxaysan karnaa every day maalin walba. We can enjoy waan ku raaxaysan karnaa every day maxaa waaye
maalin waliba. Okay, without health caafimaad la'aantiisa, without health caafimaad la'aantiisa we can't enjoy kuma raaxaysan karno our time waqtigeena. We can't enjoy kuma raaxaysan karno our time waqtigeena. Without health caafimaad la'aantiisa we can't enjoy kuma raaxaysan karno our time waqtigeena ayuu leeyahay. Okay, we should eat waa inaan cunnaa, we should eat waa inaan cunnaa prepared food cunto diyaarsan, prepared food cunto diyaarsan, prepared food cunto diyaarsan, prepared food cunto diyaarsan, and go aan aadno for exercise jimicsi, and go aan aadno for exercise jimicsi aan aadno everyday maalin waliba. Okay, we should eat waa inaan cunnaa prepared food cunto diyaarsan, and go aan aadnaa for exercise macnaha jimicsi everyday maalin walba. We should develop waa inaan hormarinaa, we should develop maxaa waaye waa inaan hormarinaa good habits macnaha caadooyinka wanaagsan. We should develop waa inaan hormarinaa good habits macnaha caadooyinka wanaagsan like sida go to bed early sariirta oo xilli hore la aado, go to bed aadada sariirta oo xilli hore la aadayo, and wake up early ee xilliga hore la soo kacayo, xilliga hore ee sariirta la aadayo iyo xilliga hore la soo kacayo ayuu leeyahay. Okay, we should develop waa inaan hormarinaa good habits caadooyinka wanaagsan like sida go to bed early macnaha habeenkii xilliga hore sariirta la aadayo, and wake up early iyo xilliga hore ee la soo toosayo. Okay, we should drink waa inaan cabnaa, we should drink waa inaan cabnaa a lot of water biyo badan. We should drink waa inaan cabnaa a lot of water biyo badan, and eat aan cunnaa fruits macnaha fruits miraha aan cunnaa miraha. We should drink waa inaan cabnaa a lot of water biyo badan waa inaan cabnaa, and eat aan cunnaa fruits miraha, and vegetables iyo khudaarta, and vegetables iyo khudaarta, fruits miraha and vegetables iyo khudaarta on daily si maalinla waa inaan cunnaa mana on daily si maalinla waa inaan cunnaa miraha iyo khudaarta. Okay, I have to consider waa inaan tixgeliyaa, I have to consider waa inaan tixgeliyaa, I have to consider waa inaan tixgeliyaa my life noloshayda, waa inaan tixgeliyaa noloshayda as my health sida caafimaadkayga oo kale, as my health sida caafimaadkayga oo kale, as my health maxaa waaye sida caafimaadkayga oo kale. That is all waa iga intaasi. Goodbye, nabadgelyo, have a good day, maalinta ku wacnaata ayuu leeyahay. That is all waa iga intaasi. Goodbye, nabadgelyo, have a good day, maalinta ku wacnaata ayuu leeyahay. Okay, intaas ayaan idigu soo talagalay. insha Allah waxaan filayaa hadii dhammaad kale la imaatay inaad ka faa'iiday. waxaan ku leeyahay ereyga cusub oo ku jira cashirka waa inaad kala baxdaa because ereyada badan waxay ka caawinayaan inaad luqadda si fast u gaarshid. marka caafimaad ayaan idiga tagay intaan cashirka loo xiiso badan kulmayno. Bye bye.